السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا لها وان السلام يا ميل كستو دنيا دافيه دكيغو سغنتيين aadiyad baan idin salaamaya soo dhawaada baan idin leeyahay minankiini waaye dhalinyaradayda jalbi culustayda waan idin salaamaya aad baan idin salaamaya soo dhawaada baan idin leeyahay ma sha Allah tabarakallah alxamdulillah shukri lillah anagu waa fiicannahay ilaahay ma hadii baan joognaa idinkana waxaan ilaahay idinka rajaynayaa sidaas leeg si lamida si iyo maartay ma sha Allah bash iyo barwaaqo ayaan noo wada rajaynayaa yaan dhamaanteen baan noo wada rajaynayaa soo dhawaada baan idin leeyahay aad baad mahadsantihiin aad baa u salaamantihiin dhalinyarada iyo maartay iyo isla garanayada ka xiran channelkeena YouTube hablahayga walaalahayga qiimaha badan leh dhalinyaradayda qiimaha badan leh ما شاء الله تبارك الله أديات بندين سود دوينية ماذا حديث سارنتي شرف كركنها طيب كرامو الحمد لله هدان انت كجدبو وحان انه هي قصة يرقبان بانه هي قصة وحان ما ركتين يعني نسو قد بسي كبد اما انه قد بنيسه نسو قد بنيسه ها ساسي صح كنت اسوامها رونهانتي قصوين كانوا وحيكو سليسينيين qoys ama khilaaf ka dhex dhacay ama isagoon maaragtay qoys ba noqonin yaa kala yaacay ama maaragtay gabadh had iyo jeer lagu durduriyo yaa oo de kulaba la xaadsaday inamadeenii de feedhaha yar waaweynaa baan leenahay inamadeenii feedhaha waaweynaa ay ku durduriyeen ayaan leenahay ayuu ku salaysan yahay nolosha ibni aadamkuna waxay ka abuurantaa oo ku tarantaa oo ku miro dhashaa oo ku maaragtay de faraceedu yahay oo ka farcantaa noloshu ka farcantaa qoys bay ka farcantaa qoys bay laba qof oo isguursaday bay ka farcantaa marka ilaahay waxaan ka baryayaa barnaamijyadan aynu soo jeedinayno nuxurka ku jira in la kala baxo oo ilaahay inooga dhigo tuina anfacda in badan way ka soo mahad sheegteen ila taliyadeen in badan hablo badan way ka soo mahad sheegteen waa lagu guuleystay maxay ahayday guryo badan waa ku sarfayfeen hooyooyin badan oo maartay aan xitaa aanu idin soo gudbinano halka anagu aan ku dhameysanayo aan bal sidaad iyo sidaa wax yeela ilaahay waa ku guuleeyay alxamdulillah shukri lillah si wanaagsan weeyaan waa nimco ilaahay haynoo siyaadiyo wixii sharana ilaahay haynaga xijaabo wixii ummadda aynu faraynay wanaagana ilaahay haynoo fududeeyo wax sharana ilaahay baa inooma soo dhiibaba ilaahayba inooma soo dhiibo wax shara isaga weyna waaxideen iyo wax maartay insaanka kala kaxaynaya iyo wax maartay dhib iyo de qaxar dabada ku haya dumarow istuusiya dumarow kaca isuufa ishaadiya de ileen waxaanu joognaa badweyne de haddaadan dii markii tala kugu caddaatay aadan dhexda xidhanin dee waxba maartay kuu suurtageli maayaan almuhiim aanu soo daadago maxay ahayd duruucda barnaamijka ama barnaamijka inan ayaa maxay ahayd qisadan inoo soo gudbinaysa inantana waxay tiri inan baanu sheekaysanay inankii aanu sheekaysay hadalka waa dudubisa oo waa dudubisa iskamana karaya ay dhoonno anu ismalihi waa dudubinaysaaba caadi baabad moodaa inaan anigu hadlaayaan soo haystaa inantii inan baanu sheekaysanay bay tiri Soomaaliya inankii markaanu sheekaysanay office layaduna waa Soomaaliyeed inankii waxay tiri waanu sheekaysanay inankii waxay tiri waanu isbaranay inan aad iyo aad wanaagsan buu runtii ahaa haddii aan laba idmaayo oo dee guur doonaho maaragtay dee caldoona ayuu ahaa warba waa ka dambeeye jabo waa ka dambeeye inankaasi waxay tiri inantaasi maxay ahayday adigu dee sheekadii markuu dee ii soo bandhigay sheekadii anigu ka biyo diidaya ayaan maaragtay la qaaday waanu sheekaysanay bay tiri inan aad wanaagsan buu ahaa inanaan maxay ahayday dhibaato lahayn buu ahaa inan haddii laba idmaayo dhega nugul oo dhega fudud oo maaragtay waxaan u baahdaba farta iga saaraya ayuu ahaa allahumma salli calaa maxamed qofkuna bay tiri haddii uu maaragtay qof dee dumarka haddii ay dee ninka ama la sheekaysanayaan ama ninkooda uu baari u yahay oo nin dhega nugul u jajabano dareenkeeda cabiri karo waxay u baahan tahay garanayo maartay dhibka ka ilaalinayo oo wixii dhibaya garanaya waa aad ilaahay baaba ilaahay isku keen tala galay waa iska jecel lahay hadaynu dumarnahay war ma beentayba waxay tiri de maadaama
wax allaale waxaan uga baahdana horteeda soo dhigayo garanayo waxaan u baahanay anigoon weydiinin anagoon babis guursanba bay tiri uu garanayo waxaan uga baahanahay inankaa waxaan meel aniguna go-aan dhigtay dee tii allana maqane tii allana waa meele ma maqneen inaanu dee maaragtay iscalfano waxay tiri inankaas ilaahay way isu dhammaystiray wax allaale waxa dhib oo kale aan ku qabay ma jirto haddaan habeen barhka la hadlo haddii aan maaragtay haddii aan laba idmaayo aan hablaha xanaaqina waxa soo socda ka xanaaqinaya haddii aan habeen barhka aan de la hadlo haddaan maalin cadii la hadlo haddaan ballan aan samaysto aan la samaysto dee appointment aan idhahdo maalintaa halkaas aad ii kaxaynaysaa aniyahow laylatalqadar dukaan haysto ahaabay tiri waxay tiri hararaf wayla haada waa ii yimaadaa ballanka ma habsaamo weli maalin iimuu jirin bay tiri aan la ballamay inankaas weli maalin aan la ballamay iimuu jirin hararaf wuu yimaadaa wuu iskeenaa dhag maxaa kuu cad maxaa kuu madow shoppingka haddaan aan samaawaadka aan idhahdo halkaasaan awrka cirka dushiisa shopping lagu sheegayo shopping center ka furan yahay siduu ku tagaba inankaas waa tagay jabba waa ka dambeeya bay tiri inankan sidaas waxay tiri waxaasoo wanaag ku qabay waxaasoo ammaana aan ku qabay hal mida ayaan inankaas ku diiday bay tiri hal mida ayaan waxaasoo wanaaga oo maaragtay uu ii samaynayo haddaan idhahdo lacag sii inankaas ama maanta waxba iga siiya waxay tiri akoonkayga kusoo shubaayay akoonkaaga iyagun bayoodhinayay waxay tiri haddaan idhahdo maanta halkaasaan u dhoofaya tigidhkaagu waa imisa haddaan idhahdo yacni ima qabo isma qabno macsi kalena nagama dhexayso macsi kuma wada soconno sheeko xalaala guur xalaala ayaan maaragtay u soconnaa sheeko xalaalana dee weliba uu isagu xoog ugu socdaa bay tiri dee raggu haddii jaraalida iyaga dumarka dee xitaa hadday rabto iyu iska aamusnayn oo iska xishoonaay guur xalaalaba dariiq xalaalaan ku soconnaa bay tiri dee wax saxoo xalaala sheekada iyada iyo haasaawahayagu waa xalaal daba jaran bay tiri xalaal haasaawe xalaal bay tiri weeyaan daba jaran waxay tiri yacni wax allaale waxaan u baahdo bimacnaa kelima wuu isoo hordhigayay hadduu shaqaynayo intuu shaqada ka soo baxo shaqooyinkan maaragtay iska dee maaragtay flexibalkaabu ka shaqaynayay aan idhahdo halkaasaan doonayaa shaqada bay tiri intuu soo xidho qarjam kasoo siiyo waaba aan soo xidho adaan ku imanaya adaan waxaa doonayso kala soo qabanaya gurigaygana ma soo gelin buu yiri bay tiri maalinna gurigayga ma soo gelin dabadaasaan babligaa dee albaabada furan ee maaragtay ummadda ilaahay ma maraysaanu dee isku aragnaa haddaan maqaaxida yarshaha kasoo wada cabno anagoo halkaa dee aan maaragtay kuraasada islaamkuba iyo dee ummadda ilaahayba wada fadhina haddaan meel wax kasoo wada cunayno halkaa ummadda islaamkuba fadhiyo aanu fadhino iyo ummadda ilaahayba wada fadhino wax private oo gooni anaga labadayadu mar qurays kuma baanaan kaliyeysan bay tiri intaa telefoonka aanu ku wada hadlayno maahaane maasha allah tabaarakallah waxay tiri sheekadu sidaasay u tahay haddaba hal wax ayaan ku diiday bay idinku tiri hablow halkaa waxaan rajaynaya kulligiin inaad aydan iguna xanaaqin taladeydana qaadataan wanaagsan waxay tiri inanku xaas buu ahaa gabadh buu lahaa caruur buu lahaa gabadhiisa ayuu la deganaa obviously reerkiisu la deganaa waxay tiri inankaas cilad kale oo aan u sheego maca xaaskiisa waan ku rabay bay tiri macaa gabadhiisa waan ku rabay yacni hadduu isagu labadayadabana kafaalo qaadanayo oo dee ilaahay baa wax kafaalo qaatay labadayadaba dad nin dee yahay dee anigana naan hus odhanayo taana hus odhanayo dee sidii raggii hore loogu yaqaanay gaw nagaga siinaya anu diyaar baan u habay tiri laakiin one thing baan ku nacay bay tiri waxay tiri wankaas aan ku nacay ama dhibkaa aan ku nacay waxay ahayd bay tiri gabadha uu qabo unbuu ila xaman jiray warba waa ka dambeeyaan idinku wari waxay tiri gabadhaasuu ninkaasi qabo ayuunbay la xantaa way igu kulushahay way ii tirisaa way igu qaylisaa qolkeedii waan ka guuray guriga inta badan waan ka maqanahay shaqada leyd baan kasoo baxaa yacni ma rabo meel lama noolaan karo lama maxay ahayd oo waxay tiri gabadhaas uu ila xamanayaa ninkaa ku nacay gabadha uu ila xamanayo ayaa ninkaa ku nacay waxay tiri waan fikiro waxaan idhi ninkaas haddii aad isguursataan oo tiisii kow ay isguursadeen ay isbilacameen uu bilacamayde uu kow guursaday uu maxay ahayday saas wax uga sheegayo
adi muuteela kuu dhigana adigana berito xiisuhu markuu dhammaado soo saa kuma higaadinayo hiblaayo soo hee saa kuma higaadinayo soo kula xaman maayo ninkan waxay tiri waan istiidsiiyaa waan tusaa inaan rabin gabadhan ha ka sheekaynin baan ku idhahdaa iska daa baan ku idhahdaa waa gabadhaadi baan idhahdaa u dulqaado yacni xitaa sheekada kuma raaxaysta bay tiri markuu sheegayo waan diidaa waa gabadhaadi iyo caruurmahaagida weeyaane yaa maxaa jira dee ka bud dumarku way iska curf badan yihiin oo way iska maaragtay waa iska quuq iyo qaq badannahay dee waa caadiya iska daa dee u dulqaado soo nin ma tiid masaasaad rabtaa inaad laba nagu qabtid maya maanta haddaad haa tiraahdo beritaydana dalqadeeda waa naqshin qisooyin horena saasna kasoo sheekayn roggan haddaba maxaan ku yeela dalqadeeda beritaan maqashinaya hadda waxay tiri waan fakeri lahay caqli buu siiyey ninka maanta yidhi naagtii ay intaasoo sanadooda soo qabeen haddii aad adigu yeesho dalqadeedaan siinaya adigana soo mid kale berito calanka u luli mayso caqli baa la iska rabaa yidhi daxaari nololii cuntamaysa waa inaan camirtaa caqlaa la iska rabaaye nololii cuntamaysa waa inaan camirtaa waxay tidhi hamburigan jiti waxaan sheeg waxaa lagaa rabaa dhakaa lagaa rabaa in badan waxaan ka fikiray inankaa sidaan xarkaa ugu jari lahaa waxaa keliya aan ku sanifay oo inankaa qadar kaga gaadhin gabadhiisa uu ila xamanayo waxaas ma xaqba nin naagtiisii kula xaman waa dabdaro weeyaan waa ragga waxaa samaynin qodhin iyo xiridin naag haddaad gursanayso gurso midkaad la sheekayso afar bay sumar haddaad rabto laakiin gabadhaha hore ceeb weeyaan inaad ka sheekaysan ceebay nacdir weeyaan waxay tiri waxaan go-aan ku gaadhay inaan hamburiga jito waxaan kaloo daba waxay tiri da markaa aan dee sameeyey inaan ninkan dee step by step aan u jaro horta feebarku ii sameynayo dhan waan joojiyey gaarigii iyo wixii anuun haddaan meel tegayo maba u sheega bay tiri taxaan iska qaataa halkaasaan ku tagaa taxigayga shaqadayda maaha waxay tiri shoppingkaygaana iska soo samaysta hawlahayo dhan cagajii telefoonkiisa 2 jeer markuu kusoo celiyay mar saddexaad kan qabtaa waxay tiri waxaasoo dhan waxaan usoo sameynaya dee inaan aan wax u dareensiiyo oo ii naco annaa dee waaban already anu waaban ka qanaco qarar baan ka qagaadhi lainahu qof nin dhanoo gabadhiisii marwadiisii ooridiisii xalaasha ahayd kula xamanaya adigana nafku ma soo wado adigu waxay tiri step by step marba waxbaan soo sheegaa marba kale waxaan soo sheegaa marba wax kale aan soo sheegaa kabacdi deed maxaa dhacay ilama soo hadashid telefoonkayga ma qabanaysid waad ugu daawanaysaa waxay tiri dee sidii nini qaba marba igu qayli aniguna de gabadh waxaan ahay go-aan gaadhay baan ahay hamburigan jito waa caadiyo maan arkaynino halkan biskay awal horena waxay tiri mar dheerig yiraahdo mar labaadkan la haadayo meeqasanan de waxay tiri waan rabay ninkan inaan muddo iskursano laakiin de waa kan inkaaraha noqday markaa waxay tiri adigu sheekadii step by step saan usoo yaryareynayay dee nin weyn tag lama yidhaahday wuxuu ku tagaa la tusaa wuxuu ku tagay baan tusay bay tiri wuxuu ku tagay ayaan tusay habeena kamaan qoomamayn bay tiri yacni wanaag fara badan buu ii sameeyey iina samayn lahaa haddii aanu isguursano waxaa la yidhi ninka waxa jooga aan garani waxa soo socdana ma garto waxay tiri haddaan maanta tan taagan aan garan waayey hadhowta tay ku dhici doontana garan maan garteen waxay tiri waxaa naagta gabadha walaashaya ee Soomaaliyeed intaad waliba ninkeedii ugu tagto oo aad ka qaado haddana ha kula xanto taas waa craziness waa wax aad u foolxun baan yidhi go-aan ku gaadhay bay tiri waa ceeb weeyaan waxa ka gaashaamo adna berito ayuu saa kugu samaynaya ya adigana berito saa kugu samaynaya hadduu iska aamusnaan lahaa bay tiri un gabadha iyo caruurtiisa iyo afaarihiisa aanu iga sheekaynin waraga wax ku qaata aanu iga sheekeeyeen bay tiri horey baan u saxiixi lahaa warqadda yaa meherka go-aanka waan u dhiibi lahaa dhaydka iyo timeka iyo taariikhda fartanka saari lahaa laakiin bay tiri dabarka waxaa igu xidhay oo naftaydii aan halkaa maaragtay aan ugu quuri waayey inantaas ila midka ahe uu saa u higaadinayay waxaan kale samaysa sidaan yeeshaa gudhuu waxay tiri hadal wadna goysa oo qalbi taktakha wax kastaan kula hadlo war heer gabadha hadda faraha ka qaad waxay tiri kuma raaxaysto wuu arkaya inaan jir diidayo markuu gabadha ka sheekaynayo haddana de meel baa laacba u baxayo uma jeedo waxay tiri waan go-aan baan ku qaatay inaan ninkan aan
soo afjaro sheekadiisa aan soo afjaro waana soo afjaray tag lama yidhaahdo wuxuu ku tagaan tusay wuxuu ku tagaan tusay markaa waxay tiri hablaha waxaan u sheegayaa oo idinba wada sheegaynaa badii hablaha oo dhanba annaguba dee qof kastoo caqli lagu garanayaa ninka aad la sheekaysanaysaa markuu gabadhiisii xaaskiisii xalaasha ahayd uu ka sheekeeyo gabadhay adna waxaad ogaatay inuu kaa sheekeyn xitaa isagoon ku guursan waa for sure inuu kaa hadlaayo isagoon ku guursan waa for sure inuu kaa hadlaayo gabadhaasaan la sheekaysta tug kalu hadduu doono odhanayaa iyaday daba qaadato iyadaas dana iyada karasa daba isla garanayada iska garan kartaan markaa waxay idinku tiri arrintaasi hadday idin qabsato ninkaas yaa sida loo dilo maaragtay sida maska madaxa looga dilo uga dila bay tiri sida maska madaxa looga dilo uga dila bay tiri ninkaas caqiibo rasuul ma laha caqiibo idin soo wada ma laha faa'iido ma laha ninkaa waxay tiri ka feejignaada noocaas oo kale hadduu idin soo maro ha laga feejignaado gabdhaha yaan laynala xamanayaa gabdhaha walaalaheena ee aqaladoodii loogu tagaayo ee odayadoodii la xadaayo yaan laynala xamanin sax soo maaha hablahow yaan laynala xamanin war haddaadna doonayso dee saari noola sheekayso dhe gabadhaada ha ku meeraysan ila meerayso ha ku maraatayn gabadhaadee dad nala sheekaysanaysa nala sheekayso di kalena deena dhaafo naga tag xagaa qaldan waayo inagana birradsaa kuba caddeeya inagana birradsaa nooga sheekaynaysaa ad gabadhaada uga sheekaysa ma naf baad noo haysa nin naagtiisa ka sheekeeyo xaaskiisi xalasha ka sheekaynaya ma mid kalu nafo haya waa nagala tag qufaca dheh fariintaas anna idin faray inantaas inayna fartay waanu idin wada farnay marka insha allah bidmillaahi kariim saasaa inoo ballana hablaha la inqilaabaya xaafadahooda loogu tegaayo yaan laynala xamanin inaan rag wax doora yaa saas isagu shaqadiisa maaha ceelkiisaasi maalinba meesha hadduu halkan ka buuxo uu ka dhaansanayo kii uu ka yimi ma yaqaano kuu ku socdana ma yaqaano ceelkaasi maantuu galo kuma yaqaano geediihow intay xabagtaasaan kaa helana waan kaa goosan haddii kalena kuma aqaano weeyaan markaa hablow insha allah dardaaran intaasaan idinkaga tegayaa dee waa inooya kal dambeetiyo kulankeena labaad biidnillaahi kariim saasaynu insha allahu tacaala kuwada socon doonaa خير يا بركان دماني بايدك قلت يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.